asalaamu calaykum marka hore soo dhawow. waa iska caadi inaad danayso dadka aragtiday ka haystaan ilaa heer dadka waxay ka aaminsan yihiin inaad danayso waxay kaa caawin kartaa joogteynta xiriirka fiican iyo isku duubnida bulshada. tusaale, dadka kugu dhow ama jaceylkaaga ma rabtid inay kaa aaminaan inaad tahay qof xun, ama adigoo askari ah in askarta kale kaa aaminaan inaad sirtooda dhiibayso. laakiin markaad aad u danayso waxay kaa aaminsan yihiin waxay kugu noqonaysaa cudur halis ah, halis ku ah jiritaankaaga qofeed. waxaad ka tegaysaa waxyaabo badan oo aad jeclayd oona mubaax ku ahaa, yacni xaaraan aan ka ahayn. waxaad xiranaysaa dhar ka duwan kuwii aad jeclayd, waxaad beddelaysaa shakhsiyaddaadii iyo habkii aad u hadli jirtay adigoo ka walwalaya dadka waxay ku dhihi doonaan iyo waxay ka aamini doonaan. marka waxaan rabaa inaan kula wadaago 5 waxyaabood haddii aad samayso aan isleeyahay waxay kaa caawinaysaa daneyntaas oo xaddhaafka inaad joojiso. qodobka koowaad, ogow inaad qof walba aad raaligelin karin. waxba kama qaldana inaad dadka wanaag u muujisid, laakiin hebel ama heblaayo yay kaa xanaaqin maaha inaad culeys weyn aad isku saarto. arrinta sidan oo kale waxay kuu soo jiidaysaa inaad naftaada hoos u dhigto. si kasta u wanaagsanow, waad arkaysaa qofku nacab iyo qof kaa soo horjeesta. qodobka labaad, ha barbardhigin naftaada dadka kale. ilaahay dadka isku si wax uma siinin. kullama aad ku mashquusho dadka waxay haystaan iyo wax kaa maqan, waxaa kula xumaanayo intaad haysatay. wakhtigan la joogo, waxyaabaha sababaya inaad naftaada dadka kale aad barbardhigto waxaa ka mid ah social media. tusaale, Instagramka waxaad ku arkaysaa qof jirkiisu dhisan yahay, waxaad ku fikiraysaa alla qofkaas jirkiisa haddaan haysan lahaa. naftaada qofnaha barbardhigin. adiga versus adiga. shalay sidaad ahayd maanta ka fiicnow, maanta sidaad tahayna beri ka fiicnow. qodobka saddexaad, aqbal naftaada. halka aad ka wanaagsan tahay iyo halka aad ka daciifsan tahay waa isla adigii uun. haddii aad is-ogolaan weydo, cid kaloo ku oggolaanaysa ma lahan. qaladaadkii horey kaaga dhacay ka cafi naftaada, u naxariiso naftaada sidaad ugu naxariisatid dadka kale. qodobka afaraad, mahadnaqa badi. ilaahay u mahad celi, dadka kalena u mahad celi. khubarada psychologiga iyo dhakhaatiirta kale waxay isku raaceen in dadka mahadnaqa badiya ama gratitude-ka sameeya ay ka farxad badan yihiin dadka waxa ka maqan ku mashquula. ilaahay wuxuuna siiyey waxyaabo badan, caafimaadka iyo diinta ay u wen yihiin, waa inaan ku shukrinaa. qodobka shanaad, qofka si fiican kuu garanayo waa adiga. noloshaada qof kale kuma noolo, waa adiga keliya. dadka waa ay ka haysan karaan aragtiyo kala duwan, laakiin qofka wixii kuu fiican iyo waxaad tahay garanaya ilaahay ka sokow waa adiga. noloshaada iyo wixii ku wanaagsan adigaa og, qof kale ha ka sugin. intaas waxaan rabaa inaan ku daro markaan leeyahay aad ha u danaynin waxay ka aaminsan yihiin dadka. ujeedkayga ma aha waxyaabo dembi ah mise dadka dhibaateyn kara inaad bannaanka la imaatid. dadka waxay ka aaminsan yihiin haddii ay kaa reebayso inaad dembi ku dhacdo, weli waa positive. muuqaalkeena halkaasuu ku egyahay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.